Asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay soo dhowaada waxaan eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa ee Yuroga ahaa ee dhex maray England iyo Switzerland. Kulanku wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan. Ingiriisku ciyaarta ay ciyaarayeen waxay ahayd mid ay mar walba isku dayayeen inay gool dhaliyaan, hase ahaatee half-time-kii hore eber ayaa lagu kala aaday. Half-time-kii dambe markii la isla soo laabtayba England dardar ayay ku soo laabatay, hase ahaatee Switzerland ayaa shabaqada gaartay daqiiqadii 75aad, taas oo niyad jabisay qaranka Ingiriiska. Hase ahaatee isla hadlis badan iyo xadaarad badan kadib waa ay soo laabatay oo waxay ku qaadatay inay soo laabato 5 daqiiqo. Daqiiqadii 80aad gool ayay dhaliyeen, walow ciyaarta ay extra time la aaday, hase ahaatee sidaas ayayna 90 minutkii ku dhammaatay. Extra time ayaa la aaday, walow fursado badan ay heleen Ingiriisku, hase ahaatee kama aysan faa'iideysan. Penalty ayaa la iskula tagay, laakiin Ingiriisku waa uu soo baxay waana uu soo wacdareeyay. Ingiriiska penalty-da waxaa tii koobaadba u tuuray Palmer, Bellingham ayaa ku xigsaday oo ansixiyay. Sidoo kale Bukayo Saka, Anthony iyo Alexander-Arnold ayaa u wada dhaliyay 5tii penalty ay tuurteen, 5tana waa ay wada dhaliyeen. Dhanka Switzerland gooshii penalty-dii ugu horeysay Akanji ayaa riday, taas oo laga qabtay niyad jabna ku noqotay. Dhammaan 3dii kale ay fursadda u heleen in ay ritaan waa ay wada dhaliyeen, hase ahaatee Ingiriiska oo tii ugu dambeysay Alexander-Arnold oo u riday ayaanba siin fursad ay ku dhammaystirtaan penalty-dii 5aad Switzerland. Ingiriisku sidaas ayuu soo final ugu soo gudbay, walow Ingiriisku uu ahaa mid liitay, hase ahaatee si ayar ah ayuu doonayaa inuu Yuroga 2024 ku qaado. Haddaba dhammaantiin aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan hadduu ku soo gaaray like